ardada u fadhisa waxaan ka rabnaa kalsooni inay imtixaanka ku galaan ay niyadooda khayr u sheegaan ilaahayna ay tala saartaan sidaasna waxaan u rajaynaynaa inay guul ku imaan doonto insha Allah taala aad u mahadsantiin imtixaankuna noo furan yahay maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 27 May 2023 waxa guud ahaan dalka ka bilowday imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare kaasoo ay u fariistaan in ka badan 34,000 guud ahaan dalka Soomaaliya galmudug maanta waxa imtixaan ku fariistay 2458 arday isla markaasina deegaanada galmudug ayaa looga fariistay imtixaanka fasalka afraad ee shahaadiga ah ee dugsiga sare halkan oo ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kana mid ah gobolada lagu galay imtixaanka qaranka ayaa waxa imtixaanka lagu galayaa laba goobood oo kala ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Almaamuun iyo sidoo kale dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Umar bin Cabdilcasiis maamulka degmada Gurceel madaxa waxbarashada ee degmada Gurceel iyo sidoo kale kormeerayaal ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si wada jir ah maanta degmada Gurceel uga daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka afraad ee dugsiga sare agaasimaha waxbarashada ee degmada Gurceel madaxa imtixaanaadka iyo shahaado bixinta galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gurceel ee Faarax Cabdi Macalin qaar kamid ah kormeerayaasha ka socday wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa maanta waxay degmada Gurceel si toos uga daafureen imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare gudoomiyaha degmada Gurceel oo maanta halkaan ka daafuray imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa ardaydu u fariisanaysa imtixaanka u rajeeyay guul asagoo ardaydan kula dardaarmay inay sameeyaan dadaal dheeri ah maadaama looga fadhiyo in dalka iyo deegaanka ay u soo hooyaan kaalmaha hore ee imtixaanka booreen ilaah baa mahadle maanta waxaan joognaa iskuulka Umar bin Cabdilcasiis ee degmada Gurceel waxaan halkaan ka daafurnay imtixaanka dowladda federaalka oo ay qaadayso waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada oo runtii juhdi iyo dadaal gelisay in imtixaankaani qabsoomo waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxda wasaaradda galmudug oo iyaduna qayb ka ahayd fududeynta iyo la shaqaynta wasaaradda iyo sidoo kaleeto akhyaartii halkaan u timid inay imtixaankana soo gaarsiiyaan ee kormeerayaashii iyo muxuu ahaay akhyaartii imtixaanka waday waxaan leeyahay marka dhammaan booliis hadday tahay iyo hadday waardiyaasha tahay iyo hadday cid walba qayb ka ah imtixaankan ay tahay inaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin imtixaanka maanta halkaan laga furayo degmada Gurceel waxa u fadhiisanaya ku dhawaad 500 oo arday waxaan ardadaas u rajaynaynaa guul iyo inay ka soo muuqan doonaan kaalimaha ugu horeeya imtixaanka qaranka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay inuu nagu guuleeyo imtixaankaas in dhalinyarada reer Gurceel ay u fadhiisatay maanta ay noqdaan kuwa kaalimaha koobaad ka soo muuqda bahada ka shaqeynaysa waardiyaha iyo kormeerkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida hufan ee shaqadiina u wadatiin waan in ku dhiirigelinaynaa waan ku garab taaganaynaa waan in kula shaqeynaynaa waxaan rajaynayaa si amni ah oo kalsooni ah inuu ku dhamaan doono imtixaankan haddii ilaahay yiraahdo ardada u fadhisa waxaan ka rabnaa kalsooni inay imtixaanka ku galaan ay niyadooda khayr u sheegaan ilaahayna ay tala saartaan sidaasna waxaan u rajaynaynaa inay guul ku imaan doonto insha Allah taala aad u mahadsantiin imtixaankuna noo furan yahay wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh